barnaamijka hordheer ayaa daawanaysaan haddaba xiisadaasi ka taagan maamulka Puntland si aan wax badan uga ogaano waxa stuudiyaha marti inoogu ah marti waa barnaamijka hordheere injineer Maxamuud Xaaji Saalax oo ahaa wasiirkii hore ee beeraha ee Puntland ahana gudoomiyaha shirarka wada tashiga ee Puntland ahana siyaasi ka soo jeeda deegaanada Puntland injineer waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka hordheere ee TV goobjooga Muqdisho aad baan kaga macalinahay waana dhawahay wax maanta ka dhacay Puntland oo golaha wakiiladu ay kalsoonida kala laabteen xukuumadda gaas maxay Puntland uga dhigneed kalfadhigoodii caadiga ahaa golaha wakiilada waxay kalsoonida kala laabteen xukuumaddii Cabdiwali Gaas wasiiradiisii dhammaan marka waxay ahayd arrin soo jiitamayso wax badan soo socotay guux badan oo soo jiitamayay arrimo isdaba joog ah oo isdaba taagnaa oo dadka shacabka reer Puntland ay ka guuxayeen bacdaba ay golaha wakiiladuna ay wakiil ka yihiin shacabka reer Puntland waxaad moodaa maanta inay ku dhaqaaqeen wadadii cadayd waxaana filaynaa inta in ka badan inay insha Allah qaban doonaan rabbi raalli ka noqdo laakiin su'aalo badan aan iska weydiinaya oo in golaha wakiiladu ay xukuumadda ay wajahaan xukuumadduna madaxweynaha joogay iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaa marka ku koobay mooshinkan oo waa maasantahay dabcan waa su'aasha meesha taalla maxay golaha wasiirada u abaareen dabcan golaha wasiiraduna waxay ku shaqeeyaan fakarka iyo awaamirta ka soo jeeda madaxweynahooda dabcan waxa ay qabanayaan waa wax raalli u ka yahay madaxweynaha amarkii mid xagaas wuxuu ahaa sheekada ugu horreysay waxay ahayd marka horeba in shirka kan xasaanada looga qaado madaxweynaha laakiin madaxweynaha markii uu ogaaday waxay noqotay laba daran mid dooro waxa uu isku dayay arrintaasi inuu ku weeciyo dadaal badan iyo juhdi badan uu geliyay inuu weeciyo dhanka wasiiradiisa waxaan u malaynayaa mar haddii arrinta taa ku dhacday wasiirada ku dhacdayna dee dabcan waa garan kartaa nin kastoo siyaasina waa garan karaa xukuumadda hadda jirta meesha waxba uma yaalaan sida anagu qabo tan ku xigtaana waxay noqon doontaa in maamulka ama xasaanada laga qaado madaxweynaha marka la leeyahay kala xasaanada madaxweynaha laga qaado ma in mooshin madaxweynaha ku ridaan oo ahaa qorshuhu mise qorshuhu ugu horreeyay wuxuu ahaa ku talagal ay ku talagaleen golaha xildhibaanadu inay mooshin ku keenaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka intaba laakiin xalay ogaanshahayga lama seexan dadaal badan iyo juhdi badan ayaan qabaa inuu geliyey madaxweynuhu si mooshinkaasi iskaga weeciyo ugu weeciyo wasiiradiisa muxuu isticmaalaa isleedahay hadda waxyaabo badan oo la isticmaalayo jiro aan oran karin hadda walow aan meesha anigu aan markhaati ka ahayn laakiin taba gooni u ah xukuumadda ay isticmaasho ayaa jirta marka mooshin la keeno oo maxay yihiin marka tabashooyinka waxay noqon kartaa isafgarad bay noqon kartaa waxay noqon kartaa ballanqaadyo noqon kartaa waxay noqon kartaa hab maaragtay waxaan oran karaa laaloosha bay noqon kartaa marka waxay doontaba ha ahaatee adigu ama ballanqaadyo ha fidiyo ama ha soo jeediyo ha yiraahdo waa hagaajinayaa sidoo maantaba u sheegay saxaafadda waxaan u malaynayaa kullay iska weeci waana hubaa inay midaasi mid la mid ah imaan doonto waqti aan fogeyn laakiin waxaa la leeyahay arrintan madaxweynaha isagu naftigiisa ka dambeeyay oo culays isagu saarnaa ma ahaynba oo golaha wakiilada in ay xukuumaddu ay saan yeelaan wararkaas ka war ma ka dambeyn karo waayo waxyaabo badan oo dadku ay tabanayaan baa jiray oo aan kuu sheegay oo si soo taraayay muhiimadda ugu weyn keentay waxay ahayd waxay waxa kala socdeen for this week oo dhan bay socdeen weekan oo dhan muhiimadda ugu weyn waxay ahayd dowladda ama xukuumaddu waxa ay dibadda la soo gashay heshiisyo oo tii ugu dambeysay ka mid ah tii dekedda Boosaaso mana jirto madaxweynuhu tan iyo markii la doortay ilaa maalinka maanta ah inuu kula soo noqdo heshiisyadaasi golaha baarlamaanka waxaad moodaa isagu inuu golahuba isla heysiiyey inuu ka dhigtay golahu miduu leeyahay oo kaleeto taas iyo waxyaabo badan oo isdaba qabsaday sida lacagta uu daabacay oo ah lacagaha paperka ah runtii hard currency loogu bedelanayo oo looga bedelanayo ganacsatada ama shacabka reer Puntland oo reer Puntland iyo shacabka waa ay noqon doonaan waxa jeebkooda ku haraya warqadda uu soo daabacay Cabdiwali taasuna waxay keentay runtii cabasho aad u weyn oo soo dadajisay in caradii shacabka ay kula dhacaan xildhibaanaduna ay ka jawaabaan
iyagoo fiirinaya shacabkooda. laakiin tirada xildhibaanada marka fiirisid aaday u badnaayeen marka maxaa isleedahay in tiro intaas la eg ay hal mar go'aankaas ay wada qaataan waliba aan Puntland hore looga baran in xukuumad sidan oo kala kalsoonidu ay baarlamaanka tirada xildhibaanada horta waa 66 inta ugu badanna waa qaateen sababtoo ah waxa weeye from Ras Aseer to Galkacyo corner walba oo Puntland ah ay dhibto taabatay waa la socotaa markii ugu dambeysay Puntland ay ahayd wixii mudaharaad ka dhacay marka cidna kama maqnaa cid walba ay taabanaysaa hadii cid walba taabatana nin kastoo xildhibaan ku jira meeshaasi way taabanaysaa marka maxaa sabab isleedahay oo siyaasadda Puntland oo kale intuu madaxweyne gaas uu joogay waxyaabo badan isbedelay maamulku dadaalo badan bixina shaqooyin badan la qabana eraboora dhismay haddana in dhaliilahan tirada badan loo jeedinayo hogaanka gaas maxay kula tahay inay tahay hogaanka gaas waxaa looga bartay oo caan ku noqday horta wax la yiraahdo cadaalad darro haddaad maqashay erabooro dhisayna hadda erabooradu waxay soo jiitamayeen dawlado badan sida dawladii ka horeysay iyo tii ka sii horeysaba wuxuu isaga la yimid mashaariic miis saaran oo dhameystirkeeda ahayd kaliya waxa uu nasiib ku yeeshay xukuumaddiisa inuu dhameystiro mashaariicdaas miiska saaran marka anigu qof walba fikir buu qabay fikirkan qaba anigu waxa weeye dushay ka saarnayd waajibaad bayna ku ahayd mashaariicdii la soo dhameeyay oo dhameystir u baahan inuu sii dhameystiro laakiin mashaariic cusub oo uu Puntland keenay xaqiiqdii weeye haddii aan si kale loo eegin oo runta laga hadlayo ma jiraan waxaan ku sheegayaa dhinaca amniga marka la yiraahdo dhibaato weyn baa ka taagan ciidanku waa arkaysaa dhowr mar bay gadoodeen waxa ay qabsadeen xarumaha bangiga waxa ay qabsadeen golaha baarlamaanka laftarkiisa ay qabsadeen ma garatay laakiin arrimahaas ma cusbeen soo mudanay oo arrimahaasi way dhici jireen mararka qaar maya arrimahaasi marna ma dhicin hal mar baan u maleynayaa ay dhacday boosaaso ka dhacday tira goota ciidamo ah oo saa u gadooday waa hal mar bay ahayd horteen ma dhici jirin mana lagu arkin astaamaha lagu arkayo dawladda tan hadda oo hogaanka u hayo Cabdiwali cadaalad darrada marka laga hadlayo way baaxad weyn tahay oo qof siyaasiyiin ama siyaasiyiinta ama madaxda waxa lagu eedeeyay in cadaalad darro ay dhacdo marka cadaalad darrada marka hadda Puntland Cabdiwali gaas uu ka sameeyay ku ugu weyn maxay noqon karaan waxay noqon kartaa dhanka sharciga noqon kartaa dhanka waxay noqon kartaa awood qaybsiga noqon kartaa oo taa ugu weyn tahay oo dhammaan reer Puntland ay og yihiin iyadoo nin walba oo Puntland ka mid ah ka ragsan yahay waxay noqon kartaa xagga dhaqaalaha ay noqon kartaa xagga siyaasadda ay noqon kartaa intaba cadaalad darro aad u ballaaran oo buuran baa ka jirta Puntland hogaanka markaan leeyahay Puntlandna waxa weeye waxaan ka wadaa hogaanka markaasi uu madaxda u yahay Cabdiwali maalintii uu musharaxa ahaa Cabdiwali wuxuu yiri wiilka baranka yimid iyo wiilka buuhad ku yaal iska sibay ugu sameeyeen dawladda absolutely reer Puntland marqaatib ka yihiin ilaahay marqaatib ku yaarigu marqaatib aan ka hay inaysan waxba ka jirin arinta iyada uu ku feel garoobay waxa kale soo raaca xiriirka uu la leeyahay isimada oo kaleeto absolutely waxay noqotay waxa uu aad ugu fashilmay ilaa uu xataa aflagaadeeyo isimada qaarkood oo idaacadaha hadda kor laga sii daayay tii ugu dambeysay waxay ahayd inuu dacaydeynayo ama wax uu ka sheegay nabadoonnadii waana ogtahay Puntland asaaskeedii waxaa soo asaasay oo ay ku dhisan tahay oo lagu hordaa lagu warso toosaa waxay ahaayeen isimadii way hayeen Cabdiwali xushmad iyo karaamo iyo ciza intaba uma hayo isimadii laakiin hadda markuu saxaafadda la hadlayay markii xukuumaddii wakiilada ay kala noqdeen xukuumaddiisu dadka ugu horreeyay salaanta u diray waxay ahayd isimada Puntland adeer waxa weeyaan taasi waxa weeyaan waxaan oran karaa horta waa qosol gariir salaam meel la isugu diray meesha ba taagna bogta meesha la xisaabtan baa yimid baarlamaan baa yimid in la xisaabtamaan waana arkaya meel kale oo cugsan kara hadda ma jirto isimadiina waxa uu ku sameeyay waa la ogyahay cid walba ka dhagsaday isimadu iyaguna waa ogyihiin karaamo darrada uu isimadu ku sameeyay runtii mid hore uga jirtayna ma ahayn isimadii runtoodu waxa arkaysaa la fahaantoodu inay cuqdadii kala qaadeen oo aad moodo wax kala geeyeen laakiin isagaana sabab u ahaa Cabdiwali siyaasadiisa kala geynta isimada laakiin injineero arinta ku saabsan isimada mar hadii uu maamulku u dhisan yahay dawladda markii iyo shaqadeeda in xukuumadda ay wadato soo kama haboona in xaqiiq weeye dawladda isimada ay ku milmi lahaayeen siyaasadda waa kugu raacsanahay isimadu laakiin marjaca ugu dambeeya marka la isqabto oo loo noqonayo waa isimada marjaca ugu dambeeyo oo ay Puntland ku dhisan tahay oo lagu kala saaraa marka la isqabto waxa weeyaan waa isimadi kuwii soo dhisay Puntland
kuwii halkaa gaarsiiyey wey haddii la ignore gareeyo oo laga dhigo waxaan jirin dhibteeday leedahay ay la imaanaysaa iyadu marka waxyaabaha marka hadda ugu daran oo ismada uu kula kacay intii uu hadda xafiiska joogay ama ismada hadda ay ka tabanayaan wax badan ba kula dhacay cidda kama qarsoona meediyahay laga sheegaa waxyaabo badan oo dhacayaa jira ismada ugu weyn Puntland oo ka soo jeeda gobolka bari baa jira aflagaada uu u geystay walow hadda laga yaabay inuu ka raaligeliyey ama ka xalmariyey laakiin waxay ahayd gaf kaga yimid cabdiweligaas mas-uul noocaas oo kaleenta ee dowlad dhan xakumaana inuu isin u gafo yacni runtii waxay dhibaatada la imaan karto waa garan karaysaa arrintan hadda oo golaha wakiilada xukuumadda ay kala noqdeen arrinta dekada boosaaso aada loo soo hadal qaaday oo waxaa la leeyahay waxay basic ay ku haysaa ama salka ku haysaa arrin oo dhaqaale marka heshiiskiina arrintaas ka waran oo in dhaqaale uu dagaalku u yahay arrinta heshiisyada horaan u sheegay cabdiweli uu la soo galo wadamada deriska ama kuwa dibadda ahba dhammaantood ama heshiisku ha ku takhasuso base ama ha ku takhasuso heshiiska mid siyaasadeed ama ha ku takhasuso mid dhaqaale cabdiweli intuu soo qaaday weli baarlamaan kama horkeenin taasina waxa weeyaan waa meel ka dhac qawaaniinta u degsan Puntland ilaa iyo 3 sano soo jirtamaysay wax badan baa loo dulqaatay shacabka iyo xukuumadda Puntland inteeda kale inta waxaad moodaa inay yihiin dad aad u dulqaad badan in badan bay soo jirtamayso loo dulqaatay oo la lahaa war in ka daayay insha Allah waa saxmaysaa laakiin markan waxa la gaaran u leenayaa waxa meesha imaanaysa how long loo dulqaadan karaa ilaa intee loo dulqaadan karaya waxay timid baan u maleynayaa finalkii dadkii Puntland inay u taliyaan dib u soo istaagay dadkii aasaasay dib u soo istaageen ay yiraahdeen talada wadanka inaan anigu guddoonka golaha wakiilada isbedelay oo guddoomiyihii hore xilka laga qaaday guddoomiye cusub hadda jooga hadda isla golaha wakiilada waxay kalsoonida kala noqdeen xukuumaddii intee loo socdaa guddoonka oo xil laga qaaday iyo guddoonka oo xil la keenaa horta waa shakhsi 66 qof buu ka mid yahay guddoomiyaha guddoonkuna waxa uu imanayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada labada ah marka waa 3 qof saameyn intee la eg ayay ku yeelan karaan 63daas qof ee kale haddii arrintu ay tahay mid meel ka qabasho leh waxaan filayaa inay meel wax ka qaban lahaayeen laakiin haddii arrinta oo mawjad socotaa ishortaaga guddoomiyuhu arma is leedahay isagay seefto qaadaysaa laakiin waxaan ka wadaa isbedelka golaha wakiilada naftigeeda ku dhacay hadda ay xukuumad sameeyeen marka hawl isbedel ah iyo dagaal siyaasadeed socda marka ma laga yaabaa in madaxweynaha marka dambe isagu ay ku tagto dabcan waa waxaan filayna waaye waa waxaan rajaynayna waaye sababtoo ah siyaasaddu haddaysan deganayn baysaysan lahayn haddaysan raacin shuruucda waddanka u degsan haddii qofku isu arkaayo inuu isagu ka sarreeyo sharciga haddii ummadda aad adigu xukuntay aad u arkaysa inaysan waxba ahayn oo la tashi aadan la yeelanayn golahii wakiilada ee adiga ku doortay inaad u timaado la talatid oo aad u dhiibatid fikirkaaga iyo afkaartaada iyo sida waddanka aad u hogaamin lahayd iyo waxa rabtid kala tashan waxaan u maleynayaa dabcan final isay ku imaanaysaa qofkii ku imaanaysaa waxa loo socdana waa isaga weey Puntland oo ah maamul hoostaga ama ka tirsan dawladda federaalka oo intuu madaxweynaha joogay waxa lagu soo doortay xildhibaano badan oo labada gole ah golaha shacabka aqalka sare sida aan ka dhawaajinay waxa ka socda mashaariic kala duwan oo raboor la dhisay maamulka kooban ama awoodiisa dhaqaale yarta wuxuu dagaal kula jiraa daacish al-shabaab ka dagaalamo marka waxyaabahaas oo dhan markii la isku daro soo lama dhihi karo waa meel fiican uu joogaa laakiin dadka iyo aan siyaasiyiinta cadaadis kale aan ujeedooyinkiisa la garanayn wada adeer waxaan kula yahay al-shabaab hadda ugu horeysan ay Puntland galaan dagaalkan ka waaweyn baa al-shabaab lala galay maamulka iyo dhaqaalaha Puntland wuxuu ahaa mid degsan oo qorsheysan buu ahaa haddii Puntland wixii soo galay aan la qorsheyn oo aan la dejin oo siyaasadda dawladdu ay u dejisay ama xukuumaddu ay u dejisay oo ay soo marsiisay golaha wakiilada oo ah miisaaniyadda sanadkiiba haddii sideeda ay tahay aan loo isticmaalin si doona laga yeelo maamulku wuxuu noqonayaa mid dhaqaalihiisu hoos u dhacayo laakiin waxaan aaminsanahay dhaqaalaha maamulka Puntland uu leeyahay hadduu miqiimiyo ama tashiilo ama isku filaysiyo waa ku filan tahay dagaalkan hadda aad ka dhawaajinayso leedahay kooxaha xag jirka ah hadda ma bilaaban dawladii ka horeeyay la dagaalamay kuwii ka sii horeeyay la dagaalamay
marka maaha mid ku cusub laakiin hadda xogaa way ka yar culus yihiin Soomaa u malayn maayo kolley haddii ay ka culus yihiin iyo hadday tabar leeyihiin intaba ma reebteen intaasoo sanana halkaa kuma jireen waxaan u malaynayaa wax ka ballaaran dowladdii ka horeysay ay samaynaysay absolutely inaysan jirin anigu waxaan aaminsanahay tii hore inay difaaceedu iyo amnigeedu wanaagsanaa waa gartay marka hadda laga hadlayo kale Cabdiweli Gaas oo hadda madaxweyne ka ah Puntland waxaa jirta in golaha wakiilada uusan kala tashan si hadda aad u ka dhawaajisay mashaariicda laga fuliyo Puntland haddii uu kala tashan oo ujeedkuna ay asagu ahaa waxa ay rabeen mar haddii ay ka noqdeen soo ayagu naftkooda golaha wakiiladu danihii shacabka la rabay inay ku matalayeen kama shaqeyn Soomaa oo hadda shacabku way ogaadeen in golaha wakiiladu iyagu naftkooda la bedeli karo qaabka la rabo loo bedelay waxaan ku sheegayaa waxa u bannaan hadda inuu dowladda ama xukuumad soo magacaabo wasiir ah la xisaabtankana mar hadduu bilaawdo waxa weeyaan miiska la isugu imaanayaa waana la xisaabtamaya sidii hore loo shaqeyn maayo mar haddii albaabkii furmayna hadda waan naqaanaa marayna Soomaali mar hadduu albaabka furmay waa furmay anigu waxaan aaminsanahay haddii aan analysis sameeyo qofka ku xiga inuu noqonayo madaxweynaha waxaa jirta xilal wasiir ama wasiir dawliyaal iyo wasiir ku xigeenno oo madaxweynuhu hadba mar laba la magacaabay muddooyinka ugu dambeeyay waxaas ma waxay ahayn pressure siyaasadeed ku daminay Soomaa pressure siyaasadeed meel walba ka jira from corner to corner dhinacaas ilaa dhinaca meesha ugu dambaysa Puntland waa uu ka jira pressure siyaasadeed isagaana furay waxaana keenaya waxa weeyaan cabashada dadka ay ka cabanayaan dhinaca awood qaybsiga aad iyo aad baa looga cabanayaa from aan yiraahdo from Ras Casayr ilaa iyo Gaalkacyo waa laga cabanaya ninkaas marka isagu haddii uu damco inuu ku xalliyo inuu dhowr wasiiro siiyo oo uu yiraahdo awoodda aan loogu qaybiyo waxaan u malaynayaa problem buu zaa'idiyay ma hayna midna ma naaqusqin taasna waa taagan tahay iyada shalayna wuxuu magacaabay 70 wasiir maantana waxa xukuumadda ka sugaysaa ama golaha baarlamaanka ka sugayaan wasiiro tala leh wasiiro yar oo tayo leh haddii wasiiro yar oo tayo leh uu magacaabo oo uu shalayna magacaabay 70 wasiir maxaad ka sugaysaa wasiiradii laga tagay marka dhibtaas weyn runtii waa taala waxaan u malaynayaa carqabada ugu weyn ee heli doonto inuu yahay madaxweynaha soo magacaabida marka hadda golaha xukuumadda laga sugay iyo wakiilada dhibaatooyin kala qabsan karo daasadaaliis maxay noqon karaan aad bay u adkaanaysaa inuu soo magacaabo xukuumad oo tayo leh oo aan ka badnayn iyadoo lagu base gareynayo dhaqaalaha waddanka 70 wasiir mushahradooda been la geyn karaa waa garan kartaa inaysan jirin in la soo magacaabo 20 wasiir oo ah wasiir iyo wasiir ku xigeenna isku ah waxay noqonayaan marka waa 10 wasiir iyo wasiir ku xigeenadooda waxaa meeshaasi lagu waynayaa beelihii horay oo u siiyay ee wasiirnimada uu siiyay ee tirsanaya ee ka sugaya hadda inuu wasiiro u magacaabo arrintaa iyadana waxay u keeni doontaa dhibaatooyin aad u fara badan waliba dhinaca shacabka marka laakiin marka soo arrintaas ma marka wax arrintaasi waa mid isaga create gareeyay waa mid soo analysis ku sameyn waa mid soo ka digin waxaan ku leeyahay dalka iyo dadka wuxuu arkay mid uu soo doona ka yeeli karayo oo sharciga isaga ugu sareeyo hadda marka hadda waqtiga marka uu haysto ku filan tahay sanad iyo bar baa u haray sanad iyo bar Puntland waa naqaanaa sanadka ugu dambeeya waa qulaab weeye markaana waxa weeyaan waxa haystaa waa bar sanad uu arko marka hogaamintana waa ninkan waa ku fashilmay runtii markaan ku sheego waxyaabihii ugu horeeyay campaignkiisa kamid ah waxa kamid ahaa 100 maalmood ugu horeyso wadanka waxaan ku dhawaaqi doonaa guddiga waxaan ku dhawaaqi doonaa doorashooyinka 100 maalmood ugu horeyso si loogu gudbo nidaamkan lixda qabaa'ilka ah waa gartay ma uusan sameyn isagoo ujeedadiisu tahay nidaamkan inuu soo celiyo taasina waxay ahayd uu ballan ku qaaday maalintii ugu horeysay oo uu musharaxa ahaa haddii taa uu sameyn waayo inuu yahay nin fashilmay oo ku fashilmay hogaaminta Puntland waxaa oran lahaa mar haddii taa jirto hadduu qofku damiir leeyahay oo isfahmi karo waxay ahayd intaa in la eegno sii jooga ma ahayn aad iyo aad buu u mahadsan yahay injineer Maxamuud Xaaji Saalax oo ahaa wasiirkii hore ee beeraha ee Puntland barnaamijka wardheere ee TV-ga